bismillaahi raxmaani raxiim kulan haboon daawadayaal ku soo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaanna waxa qayb ka noqonaya ninkii Trump ahaa wuxuu si weyn markaasi goob fagaaraha ugu sheegay in gebi ahaanba ay weerar ay ku qaadi doonaan Iran iyo weliba maraakiibta ugu cuslayd ee Mareykanku oo markan la howlgeliyay iyadoona gebi ahaanba ay ku sii jeedaan dhankaasi iyo weliba sidoo kale Iran dhinaca kale waxaana sidoo kale toddobaadkan la filayaa in magaalada Geneva ee dalkaasi Switzerland lagu qabto wadahadaladii u dhaxeeyay Mareykanka iyo weliba Iran haddaba Trump wuu cadeystay oo weliba waxa uu taagan yahay waxaan weerar toos ah ku qaadi doonaa gebi ahaanba aan basbeelin doona ama aan burburin doona Iran qorshaha ugu adag ee waqtigan bariga dhexe ayaa u muuqda in uu markaasi Mareykanku si awood leh uu ugu damacsan yahay in uu ku wiiqo talaabo kastana dagaal wax ku doono qubanaha ayaan ku qaadal dhigi doona waxa sidoo kale aad ku dhageysan doontaan dagaal kale oo u dhaxeeya isna Ruushka iyo Ukraine oo u muuqda mid faraha ka sii baxaya oo waliba la tilmaamaya in gebi ahaanba isaguna loolan adag ee siyaasadeed kala dhaxeyn doono qubanaha ayaan sidoo kale ku qaadal dhigi doona maxaad kala socotaa in wadamada Yurub qaybo kamid ah Jarmalka iyana markaan soo foosartay gaajo ama abaar aad u daran ama dhaqaaleeyri aad u daran hadba sidaad u taqaano ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jarmalka Friedrich Merz la yiraahdo oo sheegay in faqri weyn markaasi ka dhax furbay gudaha Yurub iyo waliba Mareykanka hadaba Soomaalida halkaasi ku nool maxay wajahayaan qodobadaasi waliba wixii kale nagu soo kordhayaan ku qaadal dhigi doona qubanaha daqiiqadaha in soo aadan waxaan ka dalbanayaa markuu ugu horeyso adarto channelkayga fadlan nagu soo bir ka mid noqo saaxiibadana joogtada ah ee wararkeena iyo waliba macluumaadkan oo la socodna si aad qayb aad ugu noqoto maasanidin aan ku bilaabe madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump goob fagaaraha ayuu ka sheegay markan in ay ka go'an tahay dagaalka Iran iyo waliba sidoo kale talaabada culus ee waqtigan uu qaadayo wuxuuna si cad u sheegay in gebi ahaanba la howlgeliyay dhammaan maraakiibtii dagaal oo si weyn markaasi ugu dagaalami lahayd gudaha dalkaasi Iran iyadoo waqtigan talaabada uu qaaday Mareykanku la sheegay in ay tahay mid saameyn weyn ku yeelan karto bariga dhexe iyo waliba sidoo kale gebi ahaanba dagaalada suuqyada halkaasi ka soo cusboonaaday inkii Trump ahaa magla gambanin kalaamaadkiisa ama ereyadiisa si cad ayuu u sheegay Iran ayaa la qorsheenayay in markaasi diyaar garow xoogan ay ugu jirto talaabo kasta ee loo qaadi karana saameynteeda ay ku yeelan karto mana jirto ilaa ay hadda maqaal ay soo saareen Iran laakiin Trump waa uu howlgeliyay ciidamadiisa oo walibana waa uu diray kuwii nuclearka sida weyn ugu dagaalamay maraakiibta markabkii saddexaad ayaa hadda ka dhaqaaqay gudaha dalkaasi iyadoo waliba xeebaha sida weyn ay u isticmaalayaan ay tahay mid markaasi Mareykanka iyo waliba sidoo kale Iran wadooyinka ugu adag ee kala dhaxmari doonto inkastoo Iran iyo nuqadeeda aan yareysanaynin nuclearka ama hubka ay haysato ayaa la tilmaamaya in midka Mareykanku wado mid ka daran iyana ay wado walow wadahadaladii ay markaasi ku balansanaayeen Mareykanku iyo Iran ee la filayo toddobaadkan gudihiisa inuu ka dhaco dalkaasi markaasi magaalada Geneva ee dalkaasi Switzerland taasi oo lagu wado in dib markaasi looga laaban doono qorshaha adag ama sayfaysiga warmaha waqtigan labada dhinac buu isku soo baxeen hadaba awoodda Mareykanku ma wiiqi doonta talaabada Iran ay u qaadiso mise awoodda Iran ayaa noqon doonta mid ugu sareysa waa qorshaha ugu adag ee waqtigan ay isku hor fadhiyaan dhan kastaba ha ahaatee waagaag markan haddii aan eegno dagaal u dhaxeeya Ruushka iyo waliba Ukraine ayaa lagu waramayaa in uu qarxi doono ciidamo ka tirsan cutubiyada booliiska gaarka ee Ukraine ayaana ka qayb qaadanaya tababaro ka socda ee goob tababar oo ku taala gobolka Kharkiv wakiilo ka kala socda Ruushka iyo Ukraine ayaana la filayaa inay markaasi galaan wareeg ugu cusub ee wadahadalada toddobaadkan soo socda kuwaas oo markaasi fududeynaya Mareykanka markaasi laguna qabanayo magaalooyinka Geneva iyadoo oo markaasi dagaalka uu ku dhow yahay inuu yahay markaasi sanadkii afraad isla markaana aysan muuqanin wax tanaasula oo ku saabsan dhulalka lagu muransan yahay wadahadalada waxa ay xaqiijinayaan la taliyaha isgaarsiinta ee madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky iyo waliba sidoo kale Daytor Leva iyadoo markaasi dagaalka uu ka socdo jiida hore ee markaasi dheerarkeeduna uu yahay qiyaastii
1250 kilomitir halka 750 mayl ruushka markaasi wuxuu isna wadaa weerarada uu ku hayo kaabayaasha korontada Ukraine halka Kyiv ay markaasi ay weeraro masaafo dheer ay markaasi ku qaadayso bartilmaameedyada la xiriira dagaalka iyo waliba sida warshadaha sifaynta shidaalka mustaqbalka gobolkaasi warshadaha iyo waliba soo kale Doms oo ay wali markaasi uguna ay si weyn loogu muransan yahay hadaba ruushku wuxuu si weyn ugu cadaadinaya Ukraine inay markaasi ay ka baxdo qaybo kamid ah 5 gobol ee bariga Donetsk taasi oo wali ayna markaasi maamusho dhanka kale Ukraine waxa ay markaasi diiday inay markaasi si hal dhinac ay ugu baxdo waxayna markaasi doonaysaa damaanad amni oo ku timaada dalal kale waliba reer galbeedka markaasi looga hortagi karo ruushka mar kale oo weerar markaasi u bilaabmi doono qorshahooda وهاجا ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jarmalka oo isna markaasi ka hadlayay shirka Munich Security Leader Conference ayaana sheegay in faqri weyn uu ka dhax furmay ee quwadaha Yurub Mareykanka wuxuuna ku baaqay in markaasi la hagaajiyo lana soo nooleeyo wiiri kalsoonida iskaashiga labada dhinac ee Atlantiga wuxuuna si cad u sheegay in faqriga ugu weyn waqtigan saameynteeda ku yeelan karto oo awood ahaan markaasi uu qayb weeri dalka Jarmalka talaabadii loogu bartay ama loogu yaqaan in waqtigan ay tahay mid markaasi si weyn saameynteeda ugu yeelato dad Soomaali badan ayaa halkaas ku dhaqan ama ku nool macquul gal ma tahay in saameyn iyaduna ay ku yeelato hadiiba dalalka Yurub ee waqtigan sida weyn ay abaar iyo waliba gaajo ama markaasi faqri weyn markaasi soo foosaaray wuxuuna tilmaamayaa in dagaalada ka cusboonaanayo bariga dhexe saameynteeda ay ka dareemayaan dalkaasi ee Jarmalka ama Yurub taasi oo ku tilmaamay in caqabadaha ugu adag ee waqtigan la wajahayo saameyn culus ay ku yeelan karto ay tahay وهاجا وينك انت قبناها ورركا ad kala socoteen nagu soo biira oo kamid noqda channelkeena Shariif Show